السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إذا سلام يا دمانتين وحنا ديكو سلام يا سلامة إسلامك سود وهذا ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaantiin meel walba adduunyada kaga sugan tihiin soo dhawaada waa waaskii duqbilow ahaa kablow faarax walaalkiis macawkii ka yaraa bashiir ballaa mataraan xasan guro saaxiibkiis qarashow dariskiis ku noolaaw raaw naagarse kuusa haajaaba ka jallagti macana shuuriya bannaan weyn shanta baqa boqorey aad iyo aad soo dhawaada sii sheergareeya aad iyo aad موليد عبد الله فارح وكسلام يا أديات سولوس سيفي عنا دي أركتار ودي مقشان بان في الهيا لمانتين ملو البيتو أديوت كجسوا انتهين قد كم مربو إنك يربى حيوان أمليني هدنا أوكيوي ما شاء الله سودو هذا سي شيرغريا غارسيا بيج كستا ميل كستا كتورة إيديكم ماسن أديات وواسكي دقبلو وواسكي واسيدا وعدكي شعب كصوماليات وحاوي وواسكي إذا عدول بكع الضيراء هذه لبضان مالين وإذا كيرا مغرام مسوق لللايف واسكي يري وحقوير باكير نست اللايف كي سيدة دقبلو وهوري لوغا برتي أما لودا وانجري ما شاء الله وحوها نن عدكرة وحوها نن عالنك الصوماليات أن كفانين وحوها عالنك الصوماليات نن مالو والبا يمركز تأوهيليوها ما شاء الله دقبلو وحوها مواد صوماليات أو شغيستو حماشو شلنك العقتة عروتيسا وكوكو ذنيو سو حماشوها ما شاء الله ولقي يا الله شحاد قف بلا آذن مويديسنين إنا مويديستنا الديار ميه ما شاء الله calanka garabkayga suran ma sha Allah waa calanka buluuga Soomaaliyeed oo mar walba runta ka sheego oo mar walba xaqiiqda aan kaga hadlo ma sha Allah waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo social media activist waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo xaqiiqda siyaasadda Soomaaliya ka jirto runta ka sheego waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo taageero dawladnimada waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo wanaaga Soomaaliya aad u jecel waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo hooyooyinka Soomaaliyeed ee Soomaaliya degan la jecel wanaag iyo dawladnimada helaan aad iyo aad marka waxa weeye intaas waxaan ogala jeedo waxa weeye dad badan yaa waxay yiraahdeen duqbilow lacag baa la siiyaa lacag buu qaataa wuxuuna lacag ka qaataa dawladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ولقي هذا كور ويدي شيء إن شاء الله ما كمل وحتجي دونا مساعدك شيخ حسن جامعي سيمبول إسلاميك سنتر بنتجي دونا هدو إلى هذا مالن جمعة وويسيسن دونا وحن كتنارن دونا أن علماء هرت هذا كور تجي دونا ضد بدن أو الصومالية ضد داون دونا أيقنا أن أقول دارن دونا أنا ولقي يا الله هي أنا مجرد يساي أن وحير يعني أقول دارد دورا هدي إلهي هذا إن شاء الله هدو إلهي هذا آديات معنى هذا ويتهاي أنا الضقبلوه دولد العكمة قاتو إما بيجريان وليش العكمة قادنين ما ندمعين ميل العقل بحينا مرادين أوران كتر سنة هاي ويجران وأن ممبر كايس هذا أورك من ما قرنوا كلتو آديات تاك مشي كر لكن أنا شخصيا مركز كهذا ولي دولد الصومال العكمة قادن أوكي سياسة أنا الله يسكيدا قلنا ما لندويتو يا وحان أركي الرماء آذ ليابو وأن آذ ليابو ما شاء الله وحان هذلي فكر كيغا وندليلي وحان كهذلي أو أنشيغي بدا الصومالية وحان ديدي أو درين كيغا أن موجيونيري وربدي الصومالية محاكو دعي آذ sababtoo mucaaradkii Soomaaliya dawladda Soomaaliya inay mucaaradaan la rabay ee loo baahnaa dawladda Soomaaliya inay wadada ku toosiyaan ee la rabay dawladda Soomaaliya inay xaqiiqda iyo runta u sheegaan dastuurka kula doodaan
yaa waxaan arkaa iyagoo qabiil u ordayo oo madaxweynihii reer u bursanayo ra'iisul wasaarihiina reer u bursanayo dowladdiina qabiil ka dhigay aanan si dastuuri ama macquul galan dowladdu mucaaradeen soo su'aalo badan baan keenay oo aan isweydiiyey dadaan asxaab heeroon dowladdii waxay isla taageerina waxay ma lacagtii baa laga goostay ma masaan bay ahayd ma xaaladdu ma noocan bay ahayd xaaladdu ma sidan bay ahayd xaaladdu ma kan bay ahayd iyo niic iyo waxaa weeyaan annagaa ma garanaysaa waryaada war duqbulo waa social media activist waa nin analyze gareeyo siyaasadda taagan iyo waqtiga ay marayso sida ay tahay u gorfeeyo way aadiyaan taa marka halkaas kaga tagaya ma sha Allah waxaan ahay u hadla shacabka Soomaaliyeed waxaan ahay u hadlaha dadka aan halli kar u hadlaana aadiyad qabiil haddaan jeclahay ama dhaqaale aan jeclahay adeerkay Axmed maalmihii uu $1 million 3 milyan iyo 400 ma 3 milyan iyo 3 milyan iyo 800 oo kun buu Spain gareeray aadiyad fanaaniintanadii baa xaroodeen abwaankanagi wallaaba xarooday waxaa xarooday siyaasiganagi hilib xalaal kala haaba xarooday maalinkaasaan xaroon lahaa ma garanaysaa ninka ugu heavy ugu cuslaana anigu ahaa oo ma garanaysaa ilaa iyo 130 ilaa 140 kun oo dollar ay banaanka u taalay baan aadiyad oo lagu bariyay diiday marka lacagta xaaraanta ma jeclaan oo duqbulowe aad uma jecli marka waan ka soconayaa waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo badda Soomaaliya miyaa laga heshiiyay inta aan ka ogahay xaqiiqe yaan idin la wadaagi doonaa badda Soomaaliya annagu aan leenahay ummadda Soomaaliya iska leedahay shakhsi male farmaajo male khayrana male wasiirna male waxa iska leh badda Soomaaliyeed muwaadin walba oo Soomaaliyeed ba iska leh waxaan rabnaa markiina isweydiino oo aan gorfeyno oo cod dheer oo meel fog gaaraya aan ku sheegno baddanadii Soomaaliya miyaa laga heshiiyay dowladdan hadda jirto ee uu hogaamiye mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ma heshiis qarsoodi oo annaga ogeyn bay la gashay dowladda Kenya ma waxaa jira siyaasado annaga inaga waaweyn oo nalaga qarinayo oo hantidii ummadda Soomaaliyeed ee awowyadood u dhaxalka uga qaateen miyaa jirto aniga maalmahan la soo dhaafo dhan shaki badan baa igu jiray baaritaan badan baan waday waxaan iska daayay nacamleyntii faraha badneed baan iska dhaafay indhalaantii aan dowladda nabadii nolol ku taageeriyay baan iska daayay waxaa weeye waxa aan taageerayo ma ahayn shakhsi iyo qof berri tagay waxaan taageerayo ee shuminayay waa cawaale calanka Soomaaliyeed baa ma sha Allah meesha ugu sarreysay aan wax ka xaqiijin karaan anigu gaaray oo aan tagay ma sha Allah waxa la igu dhaartay oo la xaqiijiyay inaysan jirin wax wada hadale oo dowladda ninka ugu sarreeya oo madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladda Kenya wafti ka socday ama cid ay noqoto beesha caalamka noqoto inaysan maalinna meel wada fariisanin kana wada hadlin badda Soomaaliya waxa la igu dhaartay oo la xaqiijiyay in dacwada Soomaaliya uu geeyay maxkamadda madaxweyne Xafidullah Xasan Sheekh Maxamuud uu geeyay waxa la igu dhaartay in looyarada ka shaqeynayay badda Soomaaliya dacwadeeda ka shaqeynayay inay hayr garaysay dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud oo ay tafatirtay oo ay magareysay qualified-kooda soo diyaarisay ayadoo dirsatay waxa la igu dhaartay in dowladdan hadda jirta ee Soomaaliya aysan kiiska dacwadda ay dowladdii horeeto ay maxkamaddu geysay ana wax faragelin ku sameyn inay u kordhiso dhaqaalihii iyo budgetkii inay u kordhiso moogi aan wax ka dhimin lagu sameyn waxaa kaloo aan soo xaqiijiyay oo aan si wanaagsan u soo xaqiijiyay oo dowladda Soomaaliya insha Allah hadduu Ilaahay dhawaanaha wiiga soo socdo idin la wadaagi doonto wada hadalladii ka dhacay New York ka dhacay sida tooska madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Ciraaq muxuu ahaaye Masar wada hadalladii dhaxmaray aad iyo aad transcriptigi dhaxmaray iyadana insha Allah dowladdu waxay xaqiijisay inay soo deey doonto okay dowladda Kenya waa dowladda dariska aan nahay ee Kenya waxa weeye cir iyo dhul iyo geed gaaban iyo geed dheer bay u fuushay sidii ay isaga horkeeni lahayd shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda Soomaaliya sidii isaga horkeeni lahayd bay geed dheer iyo geed gaaban u fuushay macal aniga duqbilow oo indhalaan dowladda ku taageeray iyo shucaac galay shaki bay galayeen taa xogo yar 0.0 iyo ku guuleysatay laakiin guul fiican ka qaadan mayso okay dowladda Kenya dowladda Soomaaliya waxa weeye si toos ah wada hadleen
dowladda Kenya Soomaaliya waxay ku tiri waxaanu rabnaa dacwadan inaad ka soo celisaan ee maxkamadda Hague waxaanu rabnaa inaad dacwadan ku dhamayno xaal mastuur iyo xeer jajab Afrikaanka u dhaxeeyo dowladda Soomaaliya waxay ii xaqiijisay inay cadeynteeda hayso inay tiri maya waxan maaha wax administration go'aan ka gaari karo waxan maaha wax shakhsiyaad iyo rag siyaasiyiin gooniye ay heshiis ka gaari karaan ma dhageysta waxa jawaabtanada noqotay oo siinay tiri dowladda Soomaaliya waxan maxkamadan iyo badan waxa geystay maxkamadda ummadda Soomaaliyeed ba geysatay waxa geysay dowladda ka horeysay ba geysay ummadda Soomaaliyeed saqiir iyo kabiir waxay ku qanacsan yihiin go'aanka ka soo baxo maxkamadda ama ha ku guul daraystaan ama ha ku guuleystaan ummadda Soomaaliyeed waxay ku qanacsan tahay in maxkamadda waxay u goysay qaataan aadiyad marka dowladda intaas ay xaqiijisay ma sha Allah waanan aaminay waxaana ku aaminay oo aan ku tirishtigareeyay dhowr siyaabood siyaabahan ku tirishtigareeyay waxa kamid ah in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayadoo xam badan ay ku socoto tuun badan ku socdo in annagu aan hilmaanay hadaan nahay Soomaaliyeed macalaaniga duqbulow aan hilmaanay oo niri maxaa khaldan what is going on waxaan isbedelay xaaladaas isbedelay maxay ahayn su'aalaha ugu badan ninka keenay baan ana duqbulow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu yimid meesha United Nations la yiraahdo speech buu akhriyay wuxuu si toosan gabasho lahayn uga akhriyay khudbad dhahayso kana hadlayso badda Soomaaliya oo beesha caalamku oo 200 iyo intaas oo wadan ay fadhido oo adduunyada oo dhan laga daawanayo wuxuu ka yiri ummadda Soomaaliyeed in mas'uulka ka ahay waxay ku qaracsan tahay maxkamadda Hague aadiyad ma sha Allah taasi waa qodobkan ku aaminay qodobka labaad ee aan ku aaminay waxa weeye ku tirishtigareeyay waxa weeye in dowladda Soomaaliya ra'iisul wasaaraheeda inkastoo hadalkiisa uu sanahayn hadal adag laakiin in dowladda Soomaaliya ay fariisatay afayeenna ay ka dhigatay markaa inuu ula hadlo idaacadaha ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya Mahdi Guuled inkastoo ninka ku dhaganaanahay on dhibsada hadalka uu yiri walaalaha kay laakiin waa diblomaasi waxyaabo noocaas kale taana waxay garanaysaa daliil u tahay in dowladda Soomaaliya ay hadasho ay tiri annagu waxaan ku qanacsannahay oo aan mar walba u hoggaansamayna maxkamadda adduunka waxa ay go'aamiso yaa ku qanacsannahay dowladana been ma sheegin bay tiri aadiyad wax aan qarinay oo been sheegnay male ra'iisul wasaaraha hadalkiisa haddaad si fiican u dhageystaan baa la yiri ama aad idinku dib ugu noqotaan wuxuu yiri dowladda Soomaaliya hadaan nahay wixii bartaala la yimid markii aan fariisanay ee wada hadalka u dhacay ee la isweydiiyay ee Kenya cudurdaarkeedu ta meesha la timid annagu waxaan niri soo noqodka iyo dacwadan dib loo dhigay dooni mayno the last tii ugu dambeysay Kenya way ogolaatay annaguna waan ogolaan aadiyad laakiin siyaasad weeyaan waxyaabo badan ogaan meeysan laakiin xaqiiqdu intaan anigu aan meel galgal ku jiray aan meelo badan la hadlayo oo aan xafiisa badan qaraac because mar raba inaan dalkayga iyo calankayga iyo ciidayda aan khalad ka galo anoo rag siyaasiyiin taageerayo anoo ma garanaysaa aadiyad xisbi aan ka tirsanaa ama urur aan ka tirsanahay taageerayo mar rabin inaan dalkayga iyo calankayga iyo badayda aan ma garanaysaa khalad ka galo horey bay arrintan u soo dhacday oo Sheekh Axmed markuu madaxweynaha ragana ila mid ah idaacada Soomaaliyeed ba taageeraya Sheekh Axmed qarinayay waxaan qarinayay anigu xaqiiqda ka hadlay waa cajlad duuban oo social media meel ku jirto maalintii badan dib loo dhigay shaki baa galay tuhun baa galay waxaana ka hadlay social media waxaana yiri badayda iyo ciidayda iyo caradayda ara iskale shakhsi siyaasi ama saaxiib nahay ama aan si kale wax ugu xiriiryo badayda dhulkayga ugu xiriirin maayo kuna bixi mayso badayda beenbe ku bixi mayso marka dowladda Soomaaliya ma sha Allah oo duqbulowe waxay ugu qancisay qodobadaasi qaar kale oo idin sheegeen ma sha Allah in dowladda Soomaaliya aysan ummadda Soomaaliyeed khayaanin waxa kale oo la ballan qaaday in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hor imaan doono shacabka Soomaaliyeed hadduu Ilaahay yiraahdo sababtoo 80% ummadda Soomaaliyeed waxay codsatay oo ay cod dheer ku codsatay oo tiri in madaxweynaha naga muxuu nooga aaminsan yahay waay madaxweynaha Soomaaliya uusan intuu hor imaado
uusan noogu qeexin ammaanadii aan u dhiibanay aad iyo aad ayaga naftirkooda ogo hadalkaagu dhahay waa la qorsheenayaa waxaan la qorsheenayaa in madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shacab weynaha Soomaaliyeed hor imaan doono insha Allah duleera asoona ku hadli doono luqadda loo yaqaan siyaasiga sida aad rabtaan ama duqbulo u hadlo oo aan dhahayo Kenya waa cadowganaga waa noocan inuu mako xasiiq maxamuud aan ku dhaganay ma madaxweynaha Soomaaliya insha Allah duleera yiraahdo yeesh waa qaladaadkoodii waa sixeen waana run waxyaabo badan adduunyada waxa ka jira nidaamka ka jiro la isla gartay oo markii hore to meeshan ka maqnaa ay dhici kartay madaxweyne walba oo adduunkan ka jiro dadkiisa maalin uu la hadlaa jirto dhageysta maalin uu la hadlo yaas dawladdanada khaladka way lahayd aniga naftirkeyga waan realize garay waana sababta aniga duqbulo shaki gelishoono dawladda taageeray Mareykanka haddaan ku noolnahay ama wadamada joogtaan waxaa jirta madaxweynaha 4 sano ama 5 sano uu madaxweynayo sanad walba dhameedkiisa ama bilowgiisa madaxweynaha wuxuu hor yimaadaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu kala hadlaa idaacadaha iyo TV wuxuu nation address balda nationkiisi iyo wadankiisi yuu la hadlaa asagoon la hadlaynin siyaasi opposition ku ah iyo dawlad kale isahayaan asagoon la hadlayn yaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee duqbulow oo kaleeta iyo hooyooyinka 20 milyan iyo abayaasha 20 milyan ee Soomaalida yuu la hadlaa madaxweynaha yes qaladaadkaas waa jireen horeyna maanan magaranaysa xaaladaha mayman laakiin hadda waa qasab inay timaado waa waxyaabaha ku qancay weeyaniga in madaxweynaha Soomaaliya insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo uu hor imaan doono mas'aladkiisa u dambeeya ha noqoto ama magaranaysa aad iyo 4 sano ee soo noqon doono insha Allah ha noqoto in madaxweynaha uu bilaabay uu ama hadda qabanqaabadeeda lagu jiro in madaxweynaha one day maalmaha kamid insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo asoon la hadlaynin group gooniye oo markaa shahaadooyin aan la guddoonsiinayo ama hay'ad gooniye oo markaa uu ka qayb galay ama xarig jarid oo taala xarig laga jalay uu ka hadlin waxa weeye insha Allah waxyaabaha la isku afgartay ee madaxweynaha naga shakiga looga bixi doono ee xaqiiqda banaanka ku imaan doonto waxa weeye in uu la qoondeynayo oo hadda la farsameynayo in madaxweynaha one day idaacadda ama TV-ga national qaranka inuu soo horfariisan doono ummadda Soomaaliyeed asoon la hadlaynin baarlamaan dhibkiina istikaasay dhibka Sheekh Shariif qabsatana kaaway dhibka hadda farmaajo in lagu eedeeyo oo xaaladahan iyo waxaan ay yimaadaana waxa weeye yes we process ba sameeyna waxa badan baa inoo saxmayo oo inoo hagaagayo marka insha Allah hadii la waxa laga ballan qaaday oo anoo duqbulowe in madaxweynaha maybe 2 months maybe 3 months maybe 1 week maybe 1 day I don't know laakiin in madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asoon baarlamaan la hadlaynin asagoon la hadlaynin hay'ad ama wax gooni oo xarig because mostly madaxweynayaashooda waxay maadaan meel xarig laga jaro way iska qudbeeyaan they say what they talking these people 40 ka ama 200 qof la joogta kaliya iyo ixtiraamaan la hadlayaan jeer hadaladooda siyaasadda barta isku way naga maqantaa wali in madaxweynaha naga Soomaaliyeed uu nation ka hor yimaado TV-ga qaranka ama TV-da Soomaaliyeed uu hor yimaado oo loo diyaariyo oo speech uu soo diyaarsado oo uu inoo sheego si toos inoogu sheego waxa weeye waa inaga yarneed laakiin ma sha Allah hadday bilaabatay codsigeedana waa socdaa wayna dhacaysaa haddii uu Ilaahay yiraahdo insha Allah haddii la wuxuuna si toos madaxweynaha uga hadli doonaa oo ummadda Soomaaliyeed uu u soo gudbin doonaa wixii uu qabsoomay dawladdiisa wixii ka khaldamay iyo xaaladan crisis-ka ee badanada hadda taagan heerka xaaladeed ay hadda marayso insha Allah ummadda la wadaagi doona insha Allah dollar waana waxyaabaha ku qancay way anigu hal mid lacag baqaat aroon track ba wata waa shaqeystaa ilmiga waan waxa meesha Mareykanna waa ku noolahay aroon need $100 $200 oo Muqdisho taalo oo hooyo masaakiin laga soo qaaday nin qaatami waxaan ahay u hadlaha dadka aan hadlin waxaan ahay ummadda Soomaaliyeed codkeedii baan ahay waxaan ku hadlaa cawaale codkiisa ku hadlaa oo halka ay saaran illa dulmo oo siyaasi dulmana diyaar uma ma sha Allah madaxweynaha waan sugeynaa insha Allah hadii la yiraahdo waana run way waana arrin naga maqneed way sababta hal yar intaan qodob kala gal iyo wax yar dul istaagay dhageysta waxyaabaha hadda madaxweynaha iyo magaranaysa howlwadeennada iyo hawshaas la isku afgartay way hadii Ilaahay yiraahdo ma sha Allah madaxweynayaasha Soomaaliyeed soo maray waxyaabaha aan u eedeeno ama aan magaranaysa u dacaydeyno ama markay xil ka digtaan ugu dhagno ama eedo badan uga soo baxo waxa weeye dagaalo sokay waxbaan ku jirnay yes laakiin this time we need because of nation waxa jir wax crisis ma jiro aad
ان maraykanka hadaan ku noolahay madaxweynaha markii sanadka uu dhamaanayo ama sanadku bilaabanayo wuxuu imaadaa TV-gu hor yimaadaa wadarasa laba arrin buu marna wuxuu la hadlaa Congress-ka marna wuxuu yimaadaa TV-ga iyo hor fariistaa wuxuu la hadlaa shacabka Maraykanka wuxuu yiraahdaa ma follow American annagu haddaanu nahay Soomaali wali maana arkin madaxweyne Soomaaliyeed intuu TV-ga noo imaado dhaho walaalahayga Soomaaliyeed ama dadkayga Soomaaliyeed si fiican dhageysto wali ma dhicin sababtoo madaxweyne walba marka uu qodbeenay aniga ilama hadlaya ee wuxuu la hadlayaa group gooniye oo meel fadhiyo la hadlaa groupkaasu ama xariga u jaraya ama wax u furaya ama wax gooniyo markaasi iyo madaxweyne kale laakiin annagoo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ku nool Soomaaliya iyo dafaha caalam ku nool markuu madaxweynaha TV-ga yimaado asagoonan cidna ku dhaganay laakiin aniga i update gareynayo muwaadinka Soomaaliyeed amaanadu u dhiibtay ku update garanay intuu national TV-ga yimaado idhaahdo muwaadin Soomaali madaxweynihiini weeye maanta si toos baa indin la hadlaya waxaasa qabsoomay waxaana ma qabsoomin waxaasa inoo dhiman waxaana waan qabanay xaaladdu halkaas ay maraysaa sidaasaana wax u rabnaa muwaadin Soomaali waxa weeye niyada khayr u sheeg wali macnaha SPG ma diyaarsano madaxweyne Soomaaliyeed oo say inoo la hadlo ma jiro because madaxweynaha markuu sida inoo la hadlo uu soo wax igu sheego uu sida haddan idiin hor fadhiyo anoo duqbulo indhiisa say qabanayaan oo aniga ila hadlayo gurigeyga ka daawanayo which is I feel the president ina aniga amaanadu ii hayo waxaan feel gareenayaa madaxweynihi inuu ani ii shaqeeyo waxaan dareemayaa madaxweynihi inuu aniga madaxweynahayga yahay because he's anigu ila hadlaya lama hadlayo baarlamaan lama hadlayo shir daraa'id lama hadlayo cid kaleeto lama hadlayo jaamacad lama hadlayo group xarig laga goonayo wuxuu la hadlayaa uu dhex taagan yahay gurigeyga muxuu leeyahay muwaadin oo Soomaaliga muwaadinkow waa madaxweynahaagi then I feel I have a president that's caalamka waxa ay sameeyaan taas ee madaxweynaha Erdogan insha Allah taana waa laga wada hadlay waxyaabaha la ballan qaaday kamid ma sha Allah waana sugaya madaxweyneyga oo aniga si toos ila hadlay aniga marka kuleeyahay ma aha inuu si shaqsi anoo duqbulow ilaa war duqbulow adan kula hadlay ma inuu anoo muwaadin Soomaaliyeed iyo adigoo muwaadin Soomaaliyeed xaaladahan iyo crisis ka jiro iyo waxa dawladdan u qabsoomay iyo waxaan u qabsoomay inuu madaxweynaha dadka hor yimaado insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo waana wax lagu ballamay weeye waana 10 cusub oo bilaaban doono haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah okay taa halkaas kaga tagaya anigu shakigi faraha badnaa inkastoo detail fara badan idin siineen shakigi faraha badnaa aan ka qabay hawshan ma sha Allah dawladda waxa weeye meelo badan bay daaqada iga fureen waxyaabo badan baarkay marka guul balle insha Allah badeena waxa weeye maxkamaddu waxay dhacaysaa 8 June 2020 insha Allah haduu leeyahay dawladda waxay juhdi dhaqaale wax walba hayso iyo aqoon iyo maskax hayso waxay isugu geyn doontaa maxkamadda bay isugu geyn doontaa insha Allah okay qodobka halkaas kaga tagaya qodobka waxaan ka hadlay labaad safiirka Maraykanka u dirsadeen Kenya ee shalayto Daily Nation iyo BBC lagu wareeriyay horta ama kaag bay nagu noqotay wax la yaab leh oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka yaabiyay horta noqotay safiirkii Soomaaliya fadhiyay ma safiirkan waa safiirkii Kenya fadhiyay way dawladda Maraykanku ee u dirsatay Kenya inuu xogta uga soo aruuriyo uu ku matalo Maraykanka Kenya ku matalo dawladda Maraykanka Yamamoto mid la dhaho aydan waxay u dirsatay Soomaaliya kaasa annaga aan la hadli karnaa oo noo imaan karo oo danaha Maraykanka iyo Kenya Maraykanka iyo Soomaaliya nagala dhaxeeyo kaasaan iska wareysan karnaa oo isweydaarsan karnaa safiirkan Kenya loo dirsaday waa ambassador Kenya fadhiya way Soomaaliya shaqo kuma leh markuu wadanka Soomaaliya soo galayo ama wadan kale u dhoofayo waa inuu si nidaam oo aanan magaranaysaay xaaladahan hadda socdo kale to noocan loo hadlayo kale loo hadlin waa inuu u tagaa oo magaranaysaay wadanka kale ugu safro way maxaa dhacay marka Daily Nation ka idaacadda la yiraahdo jaraa'idka la yiraahdo Kenya baa iskale Soomaali ma leh anigu hadda ka hor 2 bilood 3 bilood ka hor baan ka hadlay waxaan idaacadahayga anigu aan leeyahay ee afka Soomaaliga ku hadlo ee jaraa'idyada ama TV-yada ama website-yada ama social media naftiisa noqdo anoo duqbulow oo muwaadin Soomaali caalamka ay garab taagay oo 1300 oo qof idaawanayso oo Soomaaliya oo waxay ugu daawanayaan ay tahay badi 700 iska dheh inay Soomaalnimo ugu daawanayaan 300 inay xogta waxaan ka hadlay ay dhageystaan adeed ima weynaysiin anoo Soomaali
haddaan xataa wax wanaage oo ficnaane oo wadaniyada ama wax wanaagsan aan ka sheekeynayo anoo muwaadin Soomaaliyeed day ayago inta ugu arkayo waxa weey aad ima weynaysiinayaan idaacadanada Soomaaliga ama TV-ga ha noqdo waxa weeye niyadii annaga shacabka Soomaaliyeed ba ka dilno ayagana niyada ka dhimatay okay jaraa'id yar oo Kenya ka soo baxo oo Daily Nation do oo Kenyan leeyihiin yaa article yar buu soo article yariis ayuu soo qoraya oo ma garanaysa hadduu rabo xataa uu barabagandeenayo hadduu rabo xataa shakhsi yaa iska mala awaal iskaga samaysto oo wax uu arkay hadda ka hor rabo inuu isaga barabaganda iska soo qoray all TV-yadii Soomaalida iyo shacabkii Soomaalida dhan fiiri madaxweynahoodii ma aaminayaan ra'iisul wasaarahoodii ma aaminayaan muwaadinkoodii Soomaaliyeed ee runta ka hadlayna ma aaminayaan laakiin wiilka yar ee fuufuga jareerka ee idaacada Daily Nation iskala qoraalka yar ee article-ka uu soo qoray maqaalka uu soo qoray yaa saqiir iyo kabiir Soomaalidu way la soo wada ordayeen idaacad walba oo waxaad arkaysaa ka hadlays Daily Nation wuxuu yahay beachka duqbilow a ka population macnaha population hadii la dhaho ama view ama read among 2.8 million people ayaa soo booqato beachka yare anoo duqbilow aan ku leeyahay Facebook ku leeyahay days haddaad fiirisid jaraa'idka Daily Nation ka la yiraahdo ee ka soo baxo ka soo baxo waxa weeye waa uu shaqeyn jiray oo uu cod dheera waa jirtay dhageysta digital ba loo wareegay wali warqad buu qoraa warqad buu printer gareeyaa u daawaca maalintii hadduu 500 oo warqadood uu daawaco dhageysta 500 oo warqadood hadduu daawaco oo uu soo saaro waxa laga yaabaa inay 150 kali ka gadanto oo banaanka lagu gado dhageysta okay warqadii waa istaagay adduunyada wax warqad akhriyo oo jaraa'id warqad akhristo ma jiro waa listaaj maxaa loo soo wareegay website Hiiraan online banlena waa website-ka inoogu afka dheer Soomaalida haddaan Soomaalina oo ilaa 1999 inoo furra garaysan dadkii Mareykan joogay ama Yurub jooga garan kara ama Soomaali joog waqta internet access kist Hiiraan online oo annagoo Soomaali aan leenahay iyo Daily Nation waa laba jaraa'id weeye same thing waa website bay qoraan kana Daily Nation ka website weeye kana waa website Soomaaliyeed inkastoo warqad uu sambrita garan labadooda isku mid weeye fiiriya umada Soomaaliyeed baa iska Hiiraan oo dhalinyar dad Soomaaliyeed muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa iska leh wuxuu qoraa article lagu qoraa dhageysta article lagu qoraa oo dad muwaadiniin Soomaaliyeed oo Soomaali ah yaa maskaxdooda intay shiilaan bay article u diraan Hiiraan yaa lagu post gareey la dhigaa ma arkaysid muwaadin Kenyaane oo intuu Hiiraan online soo booqdo boqolaal ra'ay boqolaal ma garanaysa maskax oo laga qoraa jirtay intay qaataan muwaadiniinta Kenyaanka intay qaadaan oo waliba luqadda Ingiriis ku qoran oo ay fahmayaan naara Soomaali ma luqadda Ingiriis intay qaataan dadka Kenyaanka loogama dhigo war loogama dhigo because way yasayaan aniga yasayaan Soomaaliga yasayaan laakiin the same website-ka Hiiraan online ee dailynation.com yaa maqaal soo qoraayo oo nin Kenyaan soo qorayo fiiriya it's not a news ko war deg annaga halkan ka qarax baa dhacan ku leenahay war deg waxana dhacay news ka deg waxa social media la isku weerarso laakiin maqaalada aad aragteen la soo ordayo ee 4 bilood iyo 6 bilood hadda kor intii la qoray la soo ordayo ee war kaaga dhigayaan yaan rabaa inaad fahantaan ninkan yaan ba maskaxdiisa cabiray wuxuu soo qorayaa maqaal buu soo qoray wuxuu ku post gareenayaa oo uu jaan soo helaya Daily Nation ku qoran dadka Kenyaanka kayga ma qaataan Hiiraan online ku qoran iyo aqoon-yahanada maqaalada qoraan ma qaataan oo TV-yada Kenyaanka laga ma siidaay fiiriya laakiin Daily Nation ki maqaalka lagu soo qoray ee ninka Kenyaanka aha uu soo qoray Soomaalidu waa soo screen bay ka soo qaadanayaan baraha bulshada la soo dhigaya idaacadahii iska daa BBC iyo Voice of America idaacadaha ma because waa British iyo American ba qarash garay laakiin idaacadahii maxalliga ah ee TV-yada Soomaalida ay lahaayeen oo annaga Soomaaliya iska lahayn yaa maqaalkii ninka uu Daily Nation galiyay soo qaadanayaan ma tafatirin ma hubinin bisha iyo saacada taariikhda iyo maalinta ma ogo just Daily Nation yaa wax weyn leh yaa ka view badan yaa ka cod dheer yaa saameyn leh yaa ummad dhan haagi karo oo wanaaji karo waa TV-gayga maxalliga laakiin wuu is yasaya wuu is xaqiraya waxa way maskaxdii iska qaraacaya wuxuu iska dhaadhicinayaa gaalkan adoonka sanka dhuudhiga
maqaalka iyo daily nationka ugu qoran idaacadan ugu qor inay ka weynta wax weyn buu ka dhig asaana dhaqaalo badan asaana ka dad badan asaana ka view badan TV-ga soo gudbinay dhageyso وسياسي وحولي ديلي نيشن يا وحو قري واحد ور بو كدغيا ور يو تي في جي سوماليغا ee luqada Soomaaliga ku hadlayay ee ano 20 milyan aan hor fadhiyon daawanayo rabay inuu wax wanaagsan isheeg ya daily nation waxay soo qortay iyo wax weyn ka dhigaya okay TV-ga Soomaaliga idaacadda Soomaaliga aqligeeda waa siin waayay waanan magarashay ka shaqaysiin waay inuu aniga jaraa'idka aan leeyahay hiran.com aniga lay boqolaal kun oo maqaalba ku qor if you want to understand Somali political director faantid ayadoo Soomaali aad Ingiriis naara warka iyo maalinka daily news kama go hoos hiran online waa jaraa'id weey wuxuu la tartamaya uu la mid yahay hadaanan anagu xaqirin ma inaan xayisiinu sameeyay hiran I don't even know qofkii iskale laakiin inuu Soomaali leeyahay oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay maskaxdooda ku soo gudbiyaan sida muwaadiniinta Kenyaanka ee daily nation maskaxdooda ugu soo gudbiyaan ayaan anigu ogahay dhagiis jaraa'idkaygii aniga aan lahaa idaacadahaygii dadkaygii Soomaaliyeed intay baxaan Soomaalida aqoon-yahanada ee aan codka lahayn ee aan la maqlayn maqaalada qoran intay soo goostaan warka ma dhigayaan mana akhrinayaan laakiin kan adoonka gaalka ee beentii propagandada cadaawada ugu wado ee dawlad kale leedahay wax weyn buu leeyahay sheemanyo hadda ka hor wayda kala hadlay hadda ka hor halkan bakaal Soomaali waxa arkaysa idaacadan oo taagano daily nation baa waxay tiri daily nation baa wuxuu daily nation ar life soo galaa wakaas ar inta page bay ku leeyihiin social media ku leeyihiin ar life soo galaa ar inta aniga daawat dhageyst ma daawan karto because publicity mes like hada publicity Soomaali wuxuu qorana waa fake way dhageyst waxaan qorshaha amin arinta uga hadlay waxa weeyaan dadkii Soomaaliyeed oo wada juhalo noqday markay juhalo caadi intay noqdeen maskaxdoodii IQ-goodii lagu ciyaarayo oo la bahdilan markay safiirka u fadhiya safiirka Mareykanka ee Kenya fadhiyo ya June dhageysta June ayuu wuxuu tagay bishii 6 sanadkan ayuu Soomaaliya tagay Muqdisho lama kulmin madaxweynaha Soomaaliya fursad ma uusan helin oo kula kulmo oo madaxtooyada intuu tago oo madaxweynaha Soomaaliya kula kulmo dhageyst madaxweynaha Soomaaliya fursad uu kula kulmo ma helin mana dhicin fiiri ma dhicin minna ogaada dawladda Soomaaliya ama dawlad walbo caalamkan ka jirto dhageyst dawlad walbo caalamka ka jirtay dawladda Soomaaliya hadii qof siyaasi oo xil hayo diblomaasiyadeed dal kale ka haya haduu dal kale tagayo oo uusan u tagaynin caafimaad iyo hawlo kale oo private uusan u tagayn ee uu u tagayo hawlo siyaasadda quseeyo u tagayo waa in document laga reebo weey waxaan leeyahay dadkayga Soomaaliyeed ee AQ-gooda lagu ciyaaray hadaan maanta aan duqbilowe xil dawladda Soomaaliya ka qabto ama aan dawladda Mareykanka xil ka qabto yaa sano shakhsi oo Cabdirasaaq duqbilowe oo aanan dawlad idirsanin fasax baan qaadanaya dawladda kale u socdaan weydiinaya waxaan u sheegayaa inaan u socdo fasax oo aan xeebta iyo hotelkaas u socdo ama isbitaalka iyo danaha aan u socdo yaan dawladdu sheegayo dawladdii visa siinaysa dalku gale dhageys dawladda intelligence dawladdaasna korku iga ilaalinaya iyagoon liidareensiinin anigoon laytusinin anigoon aan dareemin yaa intelligence dalka aan u socdo korkaas iga ilaashana waxay rabaan inay fiiriyaan inaan arrimo siyaasadeed iyo hawlo kale iyo qas kale dalkooda aan ka wado anoo lituali fasixi fiisiba la siin dalkiiba gali danihi aan rabiyo hawshan wataan dhamaysanaya dhageyst okay anoo xil haya oo diblomaasi yaa waxaan dabcan inaan taga Kenya tago oo hawl shaqaan u tagay waxaan rabaa inaan u tago dhigayga ama hadaan noqdo agaasime ama hadaan noqdo wasiir ama hadaan noqdo madaxweyne ama hadaan noqdo ra'iisul wasaare dhigayga wadankaas rabana u tagoon arrin siyaasadeed oo masiir umadeed looga hadlay dhageyso masiir umadeed looga hadlay yaa rabana ka soo hadlay supposed to be waxa weeye ina dalka logeysiyo dalkaana waa inay cadeemo iga reebtaan maalinta taariikhdaas saacada waqtiga
ayuu duqbilow soo degay asoo ka socdo Soomaaliya oo diblomaasi airportka ka soo degay saacadu markay ahayd 9:30 magaranaysa gaarigaas lagu soo qaaday oo lambarkiisa ka yahay askariga hebel ya security detailkiisi magaranaysa u xil saarnay hotelkaas aan dejinay guest house-ka maalinta saacadaas uu la kulmay wasiirka dhigiisa yu la fariistay waxay ka wada hadlay scriptgaas oo dhan in la qoro la diyaariyo because أنا دقبله وقرف أنا بوصل على موجي أنا قاعد وحن مثلي عالم كالصومالية إيه 2 مليون الصومالية نبر كي يصير 2 مليون الصومالية يعني مقعود إيه أفكو هذا كوه الله هذه وحي والدوان قلنا ميل بلدقية وحاول بقولال سنة الله استعمالية سكريبت قال استعمالية there is no way أنا مسؤول أو دبلوماسي أنا نتان سكدو للديارات راعو أنا ودن قالوا لقيس oo waxaan doonaytaan ku soo hadlo iska soo baxdiyada kaba dhacdo baraka jirto yaan la idin jaha wareerin IQ-giina lagu ciyaaraya yes safiirka Kenya u fadhiyo Kenya u fadhiyo Mareykanka u dursatay wuu tagay Soomaaliya cid inay garan karto male scriptkiisa la haya cadeyntiisa la haya wuxuu u yimid bay umada ogta aad iyo aad asagina waa hadlay jaraa'idkan qoraal buu soo qoray BBC na waxbay soo qoratay dhageysta idaacada BBC-da ee Britishka waxbay soo qoraydan arrin banidi ka hayaan markii uu tagay Muqdisho lama uusan kulmin madaxweynaha Soomaaliya wuxuu tagay Xalane lama uusan kulmin ra'iisul wasaaraha wuxuu tagay Xalane lama uusan kulmin wasiirka arrimaha dibadda wuxuu tagay Xalane waxay kulmeen safiirka Soomaaliya ufadhiyo magara safiirka US u dirsatay Soomaaliya yay kulmeeno xagga buu tagay xaggaas asagii danaha wadankiisii baalkaleeto ya wax ka wada laakiin visitorkiisa waa loga okay asaga afkiisa waxa laga xaqiijiyay ninkan safiirka wuxuu yiri anigu madaxweynaha lama kulmin ee advisorkiisa macnaha la taliyiisa yaan la kulmay oo ku soo qaaday arrintan dhigays waxaan la kulmay oo aan la hadlay buu yiri madaxweynaha Soomaaliya la taliyiisa yaan la hadlay oo arrintan ku soo qaaday oo aan suggest ahaan magareysay aan u soo bandhigay in badan dib loo dhigo maxkamadda lagu dhameeyo la joojiyo wada hadal lagu dhameeyo arrintan badan magareysay Kenya Soomaaliya u dhaxayso in wada hadal lagu dhameeyo okay madaxweynaha Soomaaliya meeqa la taliyo leh how many fake how many reality how many oo magareysay shaqeynayso logic how many title-ka isku wato meeqa way meeq madaxweynaha loo maranaysa madaxweynaha Soomaaliya ama madaxweynaha caalamka how many la taliyo ayuu leeyahay baliishak adaan ku weydiinay wuxuu leeyahay milyan la taliyo leeyahay laakiin inta shaqeyso waa 4 iyo 5 way dhigayso ugaaska ama magareysay ugaaska beesha uu duqbilow ka dhashay ee duqbilow kablo faarax macuu ki kara la yiraahdo anigu wakashaday waa la taliyaha madaxweynaha weeye bar anaa ku tusayad sababta markuu madaxweynaha u tago wuu la talinayaa dhageysta madaxweynihii buu tagayaa wuu la talinaya wuxuu sheegayaa madaxweynaha inay saan wanaagsan tahay aad hadalka dhageysta ugaaska duqbilow kablo faarax beesha la yiraahdo ugaaska ay wakiishatay waxa weey waa la taliyaha madaxweynaha weey daasu milyan la taliya madaxweynaha Soomaaliya ama madaxweynaha caalam walbeeto kule community walbeeto qof bay wakiilata oo la taliya u madaxweynaha oo u gudbiyo kana soo gudbiyo waxay community-ga rabto waxa uu madaxweynaha community ka rabo u kala shaqo waa la taliyaha madaxweynaha qaybta community-ga noocaas la yiraahdo so la taliyuhu la kulmay maka amniga maka arrimaha dibadda maka magareysay baalkaleeta no we don't know laakiin wuxuu sheegay safiirkan uu yiri waxaan la kulmay mid kamide la taliyaasha madaxweynaha Soomaaliya waxaanan ku soo qaaday in badan dib loo dhigo oo la taliyow wasiirka arrimaha dibadda tahay maya ma la taliyay wasaaradda arrimaha dibadda waa maya ma la taliyay dhinaca amniga ee dawladda Soomaaliya ee madaxweynaha kala taliyay waa maya ma title busi waa maya أنا نقول الله تليها مدحونا الصومالية إدينا على السوشيال ميديا أنت ميدين عاد تايتل كذا وتا وأنا الله تليها غيبت السوشيال ميديا مدحونا الصومالي مقرسة يا
ها waxaan noqon karaa noo duqbulo madaxweynaha Soomaaliya la taliyaha qaybta waxaan haysan karaa social media laakiin social that not make sense magarasa xaqiiqdu waxay tahay waxa weeye in ninkan safiirka ee Kenya ee u dirsatay Mareykanku in uusan la kulmin madaxweynaha Soomaaliya waxaa xaqiijiyo arrintaasi ka hadlay safiirka Soomaaliya u fadhiyo safiir tarsan ee annaga aan Kenya u dirsanay yaa ka hadlay oo arrintan soo shaaciyay sababta markii xaalad soo baxdo dhageyso nin walba shaqo leeyahay qof walba shaqo wuxuu leeyahay loo igmal safiir tarsan safiirka inoo fadhiyo Nairobi Kenya inoo fadhiyo wax kasta oo Kenya inaga soo gaaro haddii shacabka naga la dhibaateeyo haddii dawladda Kenya wax khaldan ay Soomaaliya iyo howlaha ay la timaado haddii magaraysa arrinta xaaladda hadda taagan safiirka Mareykanka ee Kenya fadhiyo kale howlahan ijraadka soo baxay shaqadiisu waa tarsan maalinka shaqo u soo baxay tarsan waa baxay waa u tagay safiirka waa la kulmay what is going on what happened maxaa dhacay maxaa xaaladda maxay tahay maxaa weey moogi maxaa dhacay jaraadkaas wax soo qoray waxa laga rabaa in arrinta cadeysid dhigeyso then markii arrintii uu magaraysaa in person intuu ugu tagay safiirka nagi uu soo xaqiiqsan soo noqday umada Soomaaliyeed buu bartiisa Facebook ku leeyahay qoraal soo galay waan soo screenshot ba ka soo qaaday anoo duqbulo waa soo galay wuxuu yiri la kulan uu madaxweynaha Soomaaliya la kulmay safiirka ma jirto mana dhicin haddii loo baahdana cadeynteeda banaanka la keenay ma dhicin magaraysaa ninka asagana wuxuu yiri anigu madaxweynaha laba kulmine duqbulo oo dhinaca la taliyaha arrimaha social media oo kaleeto yaa la kulmo wuxuu waxa kala hadlay badda Soomaaliya aniga safiirka Jayra u fadhi Mareykan ha yimaad aniga Minneapolis degana ila la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya dhinaca arrimaha bulshada muxuu social media deen hayga hadla badda marka waaye deen badda ka hadlay jaraa'idada lagu soo qoro daas waa AQ-giina maskaxdiina Soomaaliya lagu ciyaaraya wala idinku ciyaaraya fataatiir baa idinku ciyaaraya okay ma jirto madaxweynaha Soomaaliyeed iyo safiir dal kale u dirsaday oo kulmay dirsi wax system ay ku wada kulmi karaan male dawladda Mareykanka safiir bay keensatay Soomaaliya haddii Mareykan uu dan ka leeyahay Soomaaliya the only guy imaan karo waxa weeye Yamamoto kaliya Soomaaliya madaxweynaha imaan karo bari karo una sheeg karo waxa madaxweynihiisa Trump uu ka damacsan yahay Soomaaliya waxa uu ka rabo that's the systemka diblomaasiyadda caalamkaas u shaqeeya safiira Mareykanka muxuu yahay one nothing magaraysaa ودن باودرس أنا موادنا أمريكا كي أودري كي يكشقينيا عشور تانيكا تراجع عن قوة كشقينيا يا العقد هذه بقى نقدره كي إنه كشقيا وكحماشو يا نقول تلقوا أنا وكينيا يدلوا سيدة إيه حقيقة هاي كلام ها ومدير السفير كي فديو أنا الصومالي ومدرسن كالصومالي نكلتان تاكسي كوبحيا وعشور تد كوبحيا والنغاري كوبحيا إنه الصومالية أنا قدم سيدة دي حرير كديها جاجي سيستم كدون كساس وشقيا Soomaaliya ana cawaan laga dhigin jaahili waa sababta hadda hadalkayga markaan soo dhaafay Hiiraan online iyo Daily Nation they are same waliba Hiiraan online yaa aqoon-yahano badan oo caalamkan magaraysaa xilal weyn ka soo qabtay ama Yurub ha noqdaan ama Mareykan ama Afrika ha noqdaan oo aan Soomaali ahayn ay wax ku qoraan aad Daily Nation Kenya iskale Hiiraan online anoo Soomaali ba iskale waana ku faantaa Hiiraan online magaalada ku qoradeed halkaas kaga tagay qodobka marka wax kulmay ma jiro madaxweynaha Soomaaliya oo ay ka wada hadleen بدو الصومالي دولة الصومالية ولي هذا الكذب يكون تاجتها هداينا هذا الكذب حكوا جري المدحونا الصومالية ومضى مالن هورمان دون هدي لنا أوكي قادم كبي بي سي ذا كان لمر هذا ما أنت هدا إذا عد في رصيد ضد بدن بسودية أوكي بي بي سي صار هذا the twist because of وحان كتر استقرينا وأن أجعلنا وطاونا وإذا عد يقول ريسي أف صومالي كوب حذو إلا 1960 إلا يسبني إلا 80s إلا 90s إلا هذا 2000 لبرايو وحاول إذا عاد لو قدرنا ذا كهذيش بقول كيف الشدات الجنريشن هذا الجرو وكوسه سكرنا يس أنا ير المير وحان حسستها سجال كهبي النمو مركب بيبي سوغلس أبى يقوله بناكم مناكرت أنا المير بقيس بقول كيف الشدات هذاك الصومالي بي بي سي وكوسه سكرنا وبرين ووشن وكوسه مسي وانترست جرينا وانا مشنها لكن عندنا ملهين أقصنو annaga malihin shaqaale ay hayr gareysay oo shaqaale oo af Soomaali ku hadlo iyo warqado la soo qoro iyo buushafs lagu dhiba way akhriyaan waxa weeye magaciisa sheeg muxuu ahaa waxa la yiraahdaa yaan ka garanaya horta BBC ha afogeer waa wada hilmaam ana fiican way ma sha Allah ku fogaan ma laakiin idaacada systemkeeda aan ka hadlaya warqad
akhrisan baa waana bildaan bildaan kan hadda faniga bildaan weeyaan waxaan maanta akhrinaynaa halkaas gabar ka baxday xagaas ka dhacay xagaas ka dhacday warka waa naga dhamaaday 30 daqiiqo kaliya haystaan okay BBC halkay dhig marka go idaacadaha maanta fiiri magaalada Nairobi waxaa maanta ku sugan oo shiraayay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain iyo madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya Ruto Nikadaan ya maanta kulmay qodobada ugu weyn ee maanta ka soo baxay waxa weeye inay Britishku ay yiraahdeen waxaanu garab taaganahay 100% waxaan garab taaganahay dawladda Kenya waxaa mashruuc oo dhaqaale badan lagu bixinayo ay hadda Britain gadaal ka taagantay tiri in borderka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya in la adkeenayo dhaqaale lagu bixinayo lala dagaalamayo Britain iyo Kenya isku si ay ula dagaalami doonaan al-shabaab waxa loogu yeero hadalkayga u dhigay Soomaaliya okay wasaaraddaas arrimaha dibadda ee dalka Britain iyo BBC waxay u wada shaqeeyaan dawladda dalka Britain ama dawladda UK whatever United Kingdom au taqaan Soomaaliya waliga allaha IQ-gaaga yaan lagu ciyaareen dhageyso IQ-gaaga iyo intelligence ilaahay ku siiyay yaan lagu ciyaareen do not see the small picture see the big picture karag big picture ka weyn arag BBC dhaxdhaxaad ma ka noqon kartaa wax aanan dawladdeeda ee Britain aysan ogoleen kama noqon karto British broadcast ayada iskale tusaale TV-ga qaranka Soomaaliyeed dhaxdhaxaad ma ka noqon karaa arrimaha ay dawladda Soomaaliya ay wado kama noqon karo TV-ga qaranka Soomaaliyeed waa inuu yiraahdaa wasiir maareeye ayaa hadlay waliba waa inuu qiimeeyaa u qurxiyaa way because TV-ga qaranka Soomaaliyeed wuxuu ku hadlayaa afka dawladda Soomaaliya BBC-na waxay ku hadlaysaa afka dawladda Britain bay ku hadlaysaa no way dawladda Britain wax against ku BBC kama hor imaan karto waa in ay taageertaa mawduuc kasta iyo program kasta laakiin siyaasaddu UK iyo Mareykanka waa siyaasad inaga waaweyn weyn siyaabo kale u fikiraan si yaro hoose oo jilicsan yaa lagu soo galaya hadalkayga dhayso okay shalay maanta daraad BBC waxay promoter garanaysay oo aad iyo aad u promoter garanaysay maqaalka u Daily Nation qora iyo badda Soomaaliya dhageysa iyo badda Soomaaliya ay waliba ma garanaysaa luqadda Soomaaliga iyagoon si fiican u garanayno aniga aan ka badiyo ee si toos u soo qoreen idhaayeen dawladda Soomaaliya baddi waa gadatay ku shaabadayso dhageysa in shacabkii Soomaaliyeed iyo dawladda had jirto la isaga horkan dhageysta hadalkayga dhageysa dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed in la iska horkano dawladda iyo shacabka la isnacsiyo waxa ay cover gareynayso ay sameynayso hawshan ay wado waa hool ka imaanayso xafiiska naagta boqortooyada ama xafiiska ra'iisul wasaaraha ee Britain ka imaanayso oo Bush House ninka ugu sareeya loo geenay waxa la wafti ka socdo arrimaha naga dibadda Britain yaa waxay u socdaaleen ama ay tageen Kenya magaranaysa ka taageerayaan dhinaca borderka ka taageerayaan waxaan idinka rabnaa idaacadaha Sawaaxiliga ku hadlo iyo idaacadaha Soomaaliga ku hadlo iyo idaacadaha bariga bartamaha Afrika la hadlo waxaan idinka rabnaa idinkoon la idin dareemaynin shacbiyadii faraha badneedna aan luus gareynaynin waanaad qorshe buunbuunine oo xogo siyaasi inaad samaysaan hadalkayga dhayso BBC si toos wax kugu sheegayso laakiin si yar oo xanuun iyo qarjacaho waligeed dalalka Japan iyo Jarmal bay kaga guuleysatay iyo kugu sameynaysaa halkaaga dhig marka BBC waxaan rabaa Soomaaliga intelligence lagu ciyaaraya mar walba Kenya yes badba inaga la dhaxayso mana ogolaanayna anoo muwaadiniin Soomaaliyeed inay taaka dhulkana kamida cid kale ay ku xadgudubto Kenya iyo India waa ka duwan yihiin adduunyada kale hadalkayga dhageyso Kenya iyo India wadanka la dhaho iyo Kenya wadanka la dhaho labada wadan adduunyadan kala dhan waa ka duwan yihiin isweydii su'aal yar baan ku weydiinaya wadanka India
وودن عالم هو وين بكمديا وودن كلبادة وجودت كبدن 1.7 billion people بكونوا نارا مليون billion people بكونوا تجيسيا أوكي ذلك أنت عليك أو 1.7 billion people أو Buddhism أو هندو يا مسلم يا كريستان يا دين دين مسلمين كنا لهين قابك والدولات كويها متقنا أمين أنت ضد سكويستان ما فاهم كرت وحا كانترولو أو ما مشو أو هوست كيستو بريتش باسكالي لقيسيا كان يدن أفريقيا كتالو قروحها بدن سفاري له صوماليا بربرتي إثيوبيا بربرتي سود السودان بربرتي أوغندا بربرتي رواندا بربرتي تنزانيا لسكوت دقالي صوماليا لسكوت دقالي واي كينيا وبربري ويش ويكدو انت أفريكان كلت إنديانا إيش هذا كل أكون حياله وكدو بيا ديوانا إنها فهمتد إنها فهمتد وكان أنا عمرتها كندا استراليا إنديا كينيا iyo magaraysaaya ii sheeg New Zealand iyo magaraysaaya meeqa kala ka tagay waxa la isku yiraahdaa Commonwealth waxay si toos u hoos tagaan Royal Family-ga Britain fadhiya dhigist gumaysigii kolonigii dadka la adoonsanayay howlii kala dhan British waa laga soo dhameeyay laakiin toddoba dal oo ay ku dhageen badin uhuru iyo Canada hadda doorasho ka dhacay waa maclaan Australia doorasho ka dhacay waa maclaan بقيش مريكا وكحرو United States of America ودقالمين دقال حم بقادين وكحروبين أوكي دالك بريتشكا بقرطوية ذا إمباير كبريتشكا كينيا أيها إسكالة إنديا أيها إسكالة أستراليا أيها إسكالة كندا أيها إسكالة نيوزيلاند أيها إسكالة سود أفريقيا نفتر كذا أيها إسكالة دقيقة موزمبيق يعني زامبيا وتو مجابي كويستو دقال كحون عنقبتيس أيها إسكالة نفتر كذا أيها إسكالة والضماداس waxaa lagala haray boqortooyadii aan qoraxda ka dhici jirin yaa wadamada lagala haray wixii lagala harayna book secret bay ku qoreen dhageys hadalkeeda dhageys wixii lagala haray ee wadamada Commonwealth-ga loo magaraysa gooni loogala baxay ee boqortooyadii Britishka ula baxday book secret bay ku qoranta waa la ogaan doonaa insha Allah laakiin ogow Kenya waxa iskale Britishka iskale way ilaashadaan كي روان بيساران ويكدجان ولي كولونيجي يقوميشي ولي أو عصريشان أو قروح بدن. أوكي. تد بدنو سوماليات يا سويدينيو أو سمبث الرادينيو أو غاركوس كنا واقعي. BBC يكاهوس بيحن بدان يرجع سوماليات كهالليه BBC وح إسكاله بقرطويدي عن قرح ذا كنا. You need to understand إن تافه تيجي. BBC أنا وضبلو مريض. أدو الصومالي مليهد أدو وقوي جوجو مليهد أدو كونفور جوجو مليهد أدو جيجيجي جوجو مليهد أدو غارس جوجو مليهد BBC London British Broadcasting Corporation وحا إسكالة بقرطويدي أين قرحة كده عيني با إسكالة محان كوري إنديو هل بليون قفة يكونوا شاي وحاولي دادكم با إسكال شاقيستو local government واللوغوليا لكن إنديا ولي وا British شوي British إسكالة because of resource بدن بكجرو نقالة بدن بكجرو هولا بدن بكجرو حتى دتك كنا ليس فاهم كرين قاب كلو جمشتي قاب كوش دوس عطو ما فاهم كران لكن هو وضع مدح بنان على كيس ببنية ولا وح حساب طبيعي عرض قالك الصد حالة دونكو هدع هذا الكلام هذا ليش BBC وح إسكالة بقرطويدي أي سنقرح كده عجرين سومالي والله دقالنتي ديرهم كير كوفي طب بدن باتكليش ولا عداوده ما هلمم ويلا شودي يا ويدودي هذا كوردشي عدكو هلمان تملي ولا عقدده waa lagu qabaa dhageyso marka soo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain waxay ku sugan tahay dalka Kenya waxay la kulmaysay madaxweyne ku-xigeenka ee dalka Kenya waxa laga wada hadlayaa oo socday oo wada hadal ka socday sidii looga shaqeyn lahaa dalka Kenya sidii borderkeeda iskuurka borderkeeda ee u suglayd iskuurka borderkeeda marka waxa ku jiro badda ku jirto laguma dhahay baddan ku taageerayna laguma dhahay bariga iyo balad xawaan ku taageerayna ee iskuurka Kenya si aan ogala dagaalana al-shabaab yaan ka taageerayna dhaqaale ku bixinayna aniga ay taageerayaan Soomaal marka
no one shacabkeygina maxaa ku dhacay jahwareer maxaa ku dhacay intelligence kooda waa lagu ciyaaray oday waxaad arkaysaa Soomaaliyeed islaan Soomaaliyeed qof walbo Soomaaliyeed they trust enemy iyo trust gareynayaan propagandadii enemy-ga ee ayaga dagaalka ku waday ee dhulkooda qaadanaysay ee gumaysiga garay anoo og naftarkayga iska masaaran anoo og inay BBC British iska leedahay British kuna uu Kenya iska leeyahay Commonwealth ee kamid ah aan ogahay oo aysan igil yaan bidaan iyo Cabdirasaaq Toos daawanaya why Cabdirasaaq Toos bidaan maxaa why am I trusted because if I know employer waxay u shaqeynayaan boqortooyada aan ka dhicin gobolkeed wax badan baad fahanteen marmale marka ha ku wareerina BBC baa soo qortay jaraa'id soo qortay hal mar propaganda waxa gashay propagandada labadan maalin socotay you need to understand TV-ga qaranka Soomaaliyeed haddii madaxweynaha Soomaaliya uu maanta Mareykanka yimaado ama waddan kale u tago TV-ga qaranka Soomaaliyeed wariye ka socda baxay before arinta aysan dhicin TV-ga qaranka Soomaaliyeed wuxuu sii haysiina waddanka uu madaxweynaha u socdo yaa wariyaal sii tagayaan waxay leeyihiin marka xagga tagaan meelaha qurux badan ama haddii dagaal iyo xaalad kala jirto uu ku qasbay TV-ga qaranka Soomaaliyeed inuu dhaho ra'iisul wasaarihii oo sida u socdo oo lagu hataagayo ya cirka diyaarada sawir kula galay ra'iisul wasaarihii ya raashii tagay madaxweynihii ya raashii tagay waa inay ku dhahaan way you need to understand wasiirkayga hadalka yimaado TV qaranka weyn wasiirka maanta ka qayb galay shir caalami oo maanta looga hadlay diyaaradaha looga hadlay waa inay ku dhahaan TV qaranka weyn ku dhahaan because afka dawladdu ku hadlay so BBC hala yaabin labada maalin markay leedahay Kenya badi Soomaaliya baqaal bawda safiirka baalka la badi maxaa ka dhacay badi usaan bada badi you need to understand because of aniga waan yaabana research ma sameeyay TV-yada dib ugu noqday waxaa soo fikrad garay inay madaxweyne ku xigeenkii dalka Kenya Mr Ruto iyo wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda amniga ee gaashaandhiga ee dalka Britain inay Kenya ku sugan yihiin oo laga wada hadlay sidii borderka Kenya loo sugi lahaa maadaama ay Commonwealth ay kamid tahay deena Soomaaliya xagee ku jirta xaggaas lagu aadiyay hawshan halkan ka socotaa come on hawshan halkan ka socotaa waxa weeye xaaladii waxay u socotaa sidii loo rabay adiguna xagga lagu jeeyay Cabdiraxmaan Bidaan يا عبد الرحمن عطوش يرقب الجو بدي فرماجة بدي بقدر أنا ما له الشكوى قالوا ضبلهم العقل كمان قاعد الدور ده وشيء لكن تذكر الصومالية intelligent كده لو عيارايو يمسكحه لو عيارايو مجرد إلهي بعدنا سي سيدا عتابنا وهذا لنا سيدا حقيقة تايبنا برنامج صور دينا صح ما مركو حاوية BBC هكوريرن it is not Somali broadcast اللي ما waxaad la hadashaa TV-yada Universal anaga iskale Hiiraan anaga iskale muxuu ahaay RTN anaga iskale marka anaga leena ma aniga aan leeyahay shakhsiyan laakiin walaalkay Soomaaliyeed baa iskale muwaadin Soomaaliyeed baa iskale kambaniye Soomaaliyeed baa iskale kuwaas aniga la rabaa inay codkay ku hadlaan i weynaysiiyaan adduunyada naga gadaan laakiin kuwii way hooseeyaan you know way hooseeyaan Daily Nation baa wuxuu yiri waxan BBC baa waxay tiri waxan why war adiga ka cadaa mas'uuliga sida CNN iyo Fox News iyo ABC iyo NBC Mareykanka uu dalkiisa dadkiisa u dhis adiga ka coydis siyaasadda intaad waqti u sameeysid anoo muwaadinkaaga Soomaaliyeed ikici oo Daily Nation ha iiso xigan oo BBC oo British Lane ha iiso xigan oo aniga igu waalaaygo wasiirkooda arrimaha dibadda iyo wasiir dawlahoodii rabeen ay barbotar gareeyaan waxa idin ku socday labada maalintaas ايش لبدان مالين waxa socday ee jahwaraarka nagu ruday wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha dibadda Britain ya kay ku sugan BBC-na kuwaas ay cover gareynaysa badi adigu waa lagu jahwareernay xaqiiqdu waxay tahay waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ani waa taageera ma sha Allah si wanaagsan baa u taageera badda Soomaaliya ee Kenya dacwada naga la dhaxayso gurgurtan kama gali karaan وانا ستوس بنو شيغانو تقبلوا بابليك وان كشيغي سي بريفسي ددكي قوسيسن oo kala haday badda noqotii labadiina baddan ku dhagayaan kuranay haday badda noqoto ee shakhsiyada iyo maamulka yara wadaan badda iyo caalanka aniga igala weyn ba ku yar because wiilkayga soo socdo iyo ana woogu wahay dhaxalan uga tagaan rabaan ku yar aad iyo aad marka ma sha Allah wax baddanada la gatay malaha dacwada kama dambeystana waa 8 June waa lagu yiri ma sha Allah waana qoran tahay dawladda Soomaaliya waxay ballan qaadeen dhaqaale badan juhdi badan ay gelin doonto haddii la yiraahdo madaxweynahana insha Allah waxa lagu wada hadlay in the first time the first president of Somalia
oo shacabkiisa si toos ula hadlo inay dhici doonto waana sugaynaa iyadana insha Allah dilera Soomaaliyana waan guuleysanaynaa nabadna nololna way guuleysanaysaa insha Allah laakiin xaqa in laga hadlo oo runta la sheego waa waajib weey markasta xaqa in laga hadlo oo runta la sheego waa wax waajib weey shakhsiga iyo dalka iyo calanka iyo ciida iyo badda iyo cirka badda iyo cirkii ngarisay dhulka kuwaas wax walba kala weynaanay aad farmaaji khayrna wax wanaag bay qabteen waana ku taageersanay waana sii taageeri doonaa laakiin hadii ay ka leexdaan oo shucaac yimaado ma taas ma soconin hada laakiin ma sha Allah wado fiican bay ku socdaan wado qurux badan bay ku socdaan waana ku taageerina waana ku garab istaagina insha Allah hadii marka inta aan idin sheegay IQ-ga ka shaqeeyay magaraysa inta aan ku sheegay it makes sense waana salaam ya salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh